Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Welcome to my channel. Magacaygu waa Deeqa Maxamed. Maanta waxaan idiin wadaa sida loo sameeyo buskut. Bismillaah. Hadda waxaan haystaa baaquli weyn ah. Waxaa u baahan tahay baaquli weyn ah. Waxaa u baahan tahay 2 koob oo sokor ah. 5 xabo oo ukun ah. waxaa u baahan tahay 1 koob iyo bar oo subag ah ama butter iyo 1 kiilo bur ah. marka waxaan sameeyay ukunta waxaan u bilaabay inaan u jibiyo labo xabo. halkaan ukun waqti badan ee qaadad si lagu jibiyo runtii. hadda marka waxaan ku shubay 2 koob oo sokor ah. marka maanta waxaan isticmaalayaa gacanta. haddaa rabtid waxaa ku qasi kartaa mashiinka. marka adeeg ku xiran tahay waxaa jeceshahay. hadda waxaan ku dhammaystirayaa 3 xabo ukun oo kale oo xirtay. marka in isku qastida u baahan tahay oo si wanaagsan u qasteed. waxay ku qaadanaysaa 3 ilaa iyo 4 daqiiqo kale. marka saano isku raacaa hadeer waa diyaar. marka waxaa ku darsan kartaa magaciisa subaga ama burka, laakiin muhiimadda waxay tahay in subaga bilaawdo. hadeer waa kana waxaan cabirayaa subaga. waxaan isticmaalayaa oo magaciisa cusbo lahayn. in yar waxaa dantii ugu qasabtay inaan ilaaliyo. marka asoo qandacna u baahnid inaad ku shubtid waaye. markaad ilaalisid qandac waaye waxay noqonaysaa in yar banaanka ku dhaaftid oo qabuub noqdo kabacdi aad ku dartid. midka kale waa koobkan ku shubay marka hore, haddana haafkan ku shubayaa. marka haafkan waxaan ku darsaday giiga waxaa waaye subag oo magaciisa caanaha lo'da looga samaysan yahay, laakiin se clarified ka waaye. hadeer waxaa u baahan tahay inaa isku qastido si fiican isku raaco sidaan oo kale. marka hadeer burka ku dar, laakiinse ka dhig in yar. qaybta koowaan ku shubay. marka waxaan ku dhammaystirayaa hadduu ilaahay noqdo lagu samo vaniliyaha iyo baking powderka. vaniliyaha marka waxay tahay waxaa isticmaali kartaa midka biyaha ah ama midka powderka ah. ana marka maadaama aan biskit sameynayo waxaan go'aansaday maanta inaan isticmaalo midka powderka ah. haddana waa kana waxaan ku darayaa nus qaando oo baking powder ah. bis intaas u baahan tahay. marka biskitka waxaan sameynayaa waa 1 kiilo. hadeer waxaan ku daray qaybtii labaad ah kisti yara kale. kis kale weli ii sii hartay burka.
hadeerna waxaan ku dhamaysanayaa inta kaloo dhimneed. hadeer ma ujeedaa sidoo isku soo raacaya saana u baahanta marka waa sii wadaya waa sii qasay wuxuu gaaraa inuu kulligiisa isoo wada adkeeyo. like at least waxaa u baahan tahay 5 ilaa 10 daqiiqo. waa kana hadda wuu soo dhow yahay. gacantaan iska soo dhaqay marka waxaan ku roobay midda kale. hadda waxaa inta ku isticmaalaya makiinada hilibka lagu shiido taasa buskudka dheer badan oo lagu samaysto. geedkaaniinta dhulka iyo yaalan waxaa xamaal iga soo dhiibay inta ma lagu sameeyo. hadda waa kana kii u horeeyaan ka bilaabay. waa ku wada si tartiib u soo raaca asaasoo wada baxa muubaan inaad wax kale ku samaysid. ana mana rabin inaan size-ka hal aan ka wada dhigo waayo anile waa xunaa iyo familkeyga soo marka waxaa u baahan tahay hadda markaasaan usoo magaciisa usoo sameeyaysid inay foornada kusii shidnaato. haddii foorn isticmaaloosid waaye waxaa geeyeysaa 220 waxaan geliyeysaa 20 daqiiqo. qof walba foornadiis different waaye marka waxaa yeeli karta after 15 minutes oo ulaabaysa waa fiiriyeysa soo yahay. hadda waxaan sameeyayaa qaybtii lamaad. haddaa ka heshin videogan like dhaha, subscribe dhaha, sharena dhaha si dadka kale u sii gaaro. waxaa yeelay marka foornada kaaga soo baxo horta inaad meel dhigtid oo qaboobo. markuu qaboobo markaagaa ku shubo kartaa bil wuu ku haa karaa haddaa cag oo tayd aad ku dhex gelisid. haddaa ka hesheen like dhaha, subscribe dhaha. insha allah waa inoo next videoga broobeya ani ii sheega soo nigu soo bax. bye bye.